بسم الله الرحمن الرحيم duqeymo lagu qaaday qaybo kamid ah koonfurta wadanka Iran iyo waliba jasiirada la weeraray oo mar kale lagu soo waramayo in ciidamada Mareykanku ay bartilmaameedsadeen haddaba jasiiradahan maxay tahay sababta ciidamada Ameerikaanku ay weerarka xoog leh ugu hayaan marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan xilligan si gaar ah ayaan khiyaaray u faaqidi doonaa oo aan ku lafagurayaa barnaamijkan dhinaca kale ciidamada dawladda Iran ayaa weerar xoog leh ku qaaday qaybo kala duwan oo kamid ah wadamada Carabta ciidamada wadanka Urdun ayaa ku dhawaaqaya saaka oo kaliya in duqeymihii ugu xoogganaa ay uga yimaadeen dhinaca wadanka Iran sidoo kale ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa ay tafaasiil ka bixiyeen nooca weeraradii ugu dambeeyay oo ay ku qaadeen qaybo kamid ah wadamada Carabta saldhigyo la weeraray ayay sidoo kale ka waramayaan haddii aan eego dhinaca diblomaasiyadana madaxweynaha wadanka Mareykanka saraakiisha ku dhow gaar ahaan xogayaha muraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa ku dhawaaqay in Washington ay markan door bidayso xal diblomaasiyadeed oo la gaaro haddaba maxay tahay isburinta ka imaanaysa dawladda Washington iyadoo xalay uu madaxweynaha wadanka Mareykanka uu ku gacan sayray in dalkiisa uu diyaar u yahay wax wada xaajooda inuu galo war ka soo baxay wasaaradda muraha dibadda Iran oo ku saabsan arrimaha nuclearka madax kala duwan oo biri booqanaysa magaalada Tehran iyo waliba weerarka suuragalka ah ee loo qorsheeyay nuclearka wadanka Iran xagga iminka maraya ku horeeya ciidamada ilaalada kacaanka wadanka Iran waxa ay saaka weerar xoog leh ku qaadeen qaybo kamid ah saldhigyada waaweyn ee ku yaala wadamada Carabta ee gobolka Bariga Dhexe laba saldhig oo gaar ah ayay ku dhawaaqeen inay bartilmaameedsadeen ujeedadana waxay ku tilmaameen halkaas inay tahay meelaha laga soo abaabulo weerarada Mareykanka uu ku hayo dawladda Iran ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iran ayaa ku dhawaaqay maanta inay weerar ku qaadeen laba saldhig oo ku yaala dalka Urdun kuwaasi oo lagu kala magacaabo saldhigga Amir Hassan iyo saldhigga Boqor Faisal bayaan ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in weerarkani uu qayb ka yahay jawaab military oo ay bixinayaan xilliga dagaalku uu sii soconayo iyagoo xusay in ay bartilmaameed ku ahaayeen xarumo ciidan oo muhiim ah weerarada ayaa yimid saacado yar kadib markii ciidamada difaaca cirka Urdun ay ku dhawaaqeen inay hawada ku qabteen isla markaana ay burburiyeen tiro gantaalo ah oo la soo tuuray iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka yimid dhinaca wadanka Iran iyo sidoo kale in ciidamada difaaca cirka ay wali la tacaalayaan xaaladda guud ee wadankaasi sida ay ku waramayaan baqaar kamid ah warbaahinta gobolka Bariga Dhexe ilaa iyo hadda dawladda Urdun si rasmi ah uma xaqiijin sheegashada siyaasadda Iran ee ku dhisan baaliri in labada saldhig ay la wareegeen ama ay wax khasaare ah uu ka dhashay weeraradaasi dhinaca kale xaaladda amniga gobolka ayaa wali aad u kacsan iyadoo ay sii kordhayaan iska horimaadyada u dhaxeeya Iran Mareykanka iyo xulufadiisa gobolkaasi Bariga Dhexe haddii aan eego wararka isla dhinaca Iran ka imaanaya weerar xooggan ayaa lagu soo waramayaa in lagu qaaday qaybo kamid ah jasiiradaha muhiimka ah oo ay kamid tahay Siriig sida ay tilmaamayaan baqaar kamid ah wakaaladaha wararka ee dawladda Iran ujeedada weerarka waxa lagu tilmaamay inay ahayd mid dawladda Iran ay doonaysa baaliri in ay kaga hortagto weeraradaasi hasaatee ciidamada Centcom ee Mareykanku waxa ay wali sameynayaan duqeymaha ugu xooggan oo ujeedadoodu tahay in ay ku naafeeyaan ciidamada wadankaasi Iran wakaalada wararka ee dawladda Iran ee Faris lagu magacaabo ayaa sheegtay in 3 qarax laga maqlay agaarka magaalada Siriig oo ka tirsan gobolka Hormuzgan ee koonfurta wadanka Iran waxa ay sidoo kale xuseen in qaraxyadu ay ka dhaceen meelo ku dhow magaalada hase yeeshee lama shaacin waxa sababay qaraxa ama goobta saxda ah oo ay wax ka dhaceen ilaa iyo hadda mas'uuliyiinta Iran ma aysan soo saarin war rasmi ah oo faahfaahinaya
sababta qaraxyadan ama haddii ay jiraan khasaare kale oo ka dhasha weerarada. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli gobolku ay ka taagan tahay xiisad military oo sii xoogaysanaysa, iyadoo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaraxyadu ay weli aysan soo bixin, iyo weliba dhibaatooyinka weeraradaasi ka dhashay oo ilaa iyo hadda aan shaacin dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. marka la eego xaaladda kale ee gobolka saaka ka taagan, ciidamada dalka Urdun ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka hortageen weeraro xooggan oo lagu soo qaaday wadankooda, isla markaana ay soo rideen ilaa iyo 4 diyaaradood oo kala duwan oo ka yimid jihada dhinaca wadanka Iiraan. ciidamada qalabka sida ee wadanka Urdun ayaa ku dhawaaqay in ciidamada cirka ee boqortooyadu ay ku guuleysteen inay hawada ku qabtaan, isla markaana ay soo ridaan 4 diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo ka yimid dhinaca Iiraan ama ku sii jeeday dhinaca wadanka Urdun, sida lagu sheegay baaqan iyo bayaanka la sii daayay. bayaan uu soo saaray militariga Urdun ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu fashilay diyaaradahaasi uu u dhacay si guul ah, isla markaana uusan wax khatar ah geysan inta la og yahay ilaa iyo hadda yolashii bartilmaameedka dowladdaasi ay ugu tala gashana aanu gaarin. ciidanka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in howlgalka lagu soo riday diyaaradaha uusan sababin baa la yidhi wax dhimasho ama dhaawaca, isla markaana uusan jirin wax waxyeello hantiyadeed ah oo ka dhashay weeraradii ugu dambeeyay. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii kordhayaan xiisadda military ee u dhaxaysa Iiraan, Mareykanka iyo weliba dhinaca kale ee sida weyn uga soo horjeeda dowladda Iiraan waa Israa'iil oo hadda Mareykanka ku qalqaalinaysa in ay weerar kala qaadaan. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee wadanka Iiraan Ismaaciil Baqaa'i ayaa ku hanjabay Mareykanka weerarada uu u qorsheynaya inuu ku qaado xarumaha nuclear-ka wadankaasi inay yihiin dunuub caalami ah oo dagaal oo aan la aqbali karin. waxaana uu soo jeediyey intii ay goor tahay in madaxweynaha wadanka Mareykanka uu ka fiirsado tallaabooyinka qariska tuurnimada. afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Baqaa'i ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu si cad u jabinayo sharciga caalamiga, isagoo sheegay in weerarada hanjabaadda joogtada ah ee lagu bartilmaameedsada xarumaha nuclear-ka ee nabadeed inay yihiin kuwa ka hor imaanaya axdiga qaramada midoobay oo qalad ah in Trump iyo dowladdiisu ay tallaabooyinkaasi qaadaan. qoraal uu ku baahiyay barta X, Baqaa'i waxa uu ku sheegay in dhammaan howlaha nuclear-ka Iiraan si buuxda loogu wargeliyay hay'adaha caalamiga ah ee tamarta atomikada, isla markaana ay waafaqsan yihiin waajibaad damaanad qaadaya dalalka muhiimka ah. afhayeenka waxa uu sidoo kale ku dooday in diiradda uu Mareykanku saarayo deegaanka la yiraahdo Klong oo uu sheegay in uusan wax dhaqdhaqaaq nuclear ah aysan hadda ka socon, ujeedadana ay tahay marmarsiyo la doonayo deegaankaasi in lagu burburiyo. Baqaa'i waxa uu carabka ku adkeeyay in shacabka Iiraan ay yihiin kuwa midaysan oo adkaysi leh, isla markaana diyaar u ah inay si buuxda uga hortagaan tallaabo kasta oo cadowtinimo ah oo uga timaada Mareykanka ama xadgudub kasta oo lagu sameeyo baa la yidhi madax bannaanida iyo amniga qaranka wadankaasi Iiraan. xilli qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee wadanka Ciraaq loo xiray sababo la xiriira weerarada dowladda Iiraan ay qaadayso, haddana ra'iisul wasaaraha cusub ee wadankaasi ayaa maalinta bariya booqan doona magaalada Tehran, isagoo kulamo la yeelanaya madaxda kala duwan ee dowladda Iiraan. ujeedadu waxay tahay in uu kala xaajoodo duqeymahan xoogga leh ee dowladdaasi Tehran ay ka shaqaynayso. afhayeenka dowladda Ciraaq ayaa ku dhawaaqay in ra'iisul wasaaraha wadankaasi Cali al-Saydi uu biri oo Khamiisa booqasho rasmi ah ku tagi doono dalka Iiraan. afhayeenka ayaa sheegay in booqashadu ay qayb ka tahay xiriirka iyo wada shaqaynta u dhaxeeya labada dal, hase yeeshee ma uusan faahfaahin ajandaha kulamada la filayo in ay dhacaan
oo u dhaxeeya baa la yidhi dowladda Iiraan iyo waliba dhinacan kale ee ka soo horjeeda ama waa Ciraaq oo duqeymo xooggan la kulmaysa maalmihii ugu dambeeyay. dhinaca kale waxa uu si cad u sheegay in arrinta ku saabsan xaaladda ama gacanta dowladda ee lagu soo koobayo hubka ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee Ciraaq ee la xiriirta madax banaanida wadankeeda. dowladda Iiraan ayaa taageertay jabhado kala duwan oo ka dhisan wadankaasi Ciraaq. hase ahaatee dowladda Ciraaq ayaa doonaysa hubkaasi inuu gacanta dowladda Baghdad galo, taasoo ka dhigan garab ka mid ah unugyada wax iska caabinta Iiraan ee gobolka Bariga Dhexe in la doonayo in rayid laga dhigo. waa arrin qaran oo aan laga hadlin baa la yidhi caasimada kale, ayuu yidhi afhayeenka dowladda, isagoo carabka ku adkeeyey in go'aamada la xiriira hubka amniga gudaha ay yihiin kuwa dowladda Ciraaq oo kaliya ay leedahay. nidaamka Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in mar kale uu calaamadeynayo buurta la yiraahdo Jabal al-Macuul oo ku taala gudaha wadanka Iiraan inay tahay meelaha gaarka ah ee dowladda Tehran ay ku qarinayso hubka nuclear-ka, isla markaana ujeedadiisu ay tahay in Mareykanka ay muhiim tahay goobtaasi inay si weyn u duqeeyaan. ilaa iyo shalay waxay ka shaqeynayaan buurta Al-Fas loo yaqaano in duqeymo lagu qaado, taasoo lagu tilmaamay in Mareykanka markii dambe uu calaamadeeyay goobaha la weerari karo. idaacadda ciidanka Israa'iil ayaa baahisay qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha amniga Israa'iil, taasoo sheegaysa in xarunta Jabal al-Macuul oo ku dhow magaalada Natanz ay leedahay dhammaan kaabayaasha lagama maarmaanka ah in lagu dhiso xarun dhulka hoostiisa ah oo ku taala oo lagu kobciyo uranium-ka. qiimeynta ayaa sheegaysa in haddii la helo uranium la kobciyo, arrintaasi ay noqonayso qadcas oo u baahan in Mareykanka uu si degdeg ah uga falceliyo. warbixintu waxay intaasi ku dartay in mas'uuliyiintu ay hadda u muuqato kuwa diyaar u ah in ay hirgeliyaan xaruntaasi howlgal lagu kobcinayo uranium-ka ilaa heer 90% la gaarsiiyo, taasoo ah heerka ugu badan ee lala xiriirinayo isticmaalka militariga dowladda Iiraan. sidoo kale qiimeyntu waxa ay sheegaysaa in Israa'iil, inkastoo Mareykanku uu awood u leeyahay in uu carqaladeeyo shaqada xarunta uu kaga hortagayo si buuxda in uu howlgasho, haddana aysan u badnayn baa la yidhi in gebi ahaanba la burburiyo xaruntaasi maadaama ay ku taalo dhulka hoostiisa. haddii aan eego wararka kale oo ku saabsan arrimaha dagaalka u dhaxeeya dowladda Iiraan iyo waliba dalka Mareykanka, sida muuqata dowladda Iiraan waxay qaadaysaa duqeymo, siyaasadda Mareykankuna waxay u muuqataa dagaalkan inay tahay mid mugdi ku jirta oo aan si cad loo aqoon, halka Trump uu doonayo inuu wax ku soo gabagabeeyo. qoraal siyaasadeed oo uu qoray qoraaga la yiraahdo Fahad al-Qaydaan ayaa waxa uu ku sheegay in xaaladda amni ee Urdun ay gashay xaalad cusub kadib kororka weerarada la sheegay in ay ka imaanayaan Iiraan, hubanti la'aan siyaasadeed oo ka taagan Mareykanka iyo xaaladda gobolka oo meel adag maraysa. qoraagu waxa uu xusay in Ammaan ay dareentay weeraradii ugu dambeeyay in ay muujinayeen dadaal cad oo Iiraan ay ku beegsanayso bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala Urdun oo waliba ah kuwa kala duwan kana bedelan qaabkii hore ee dagaalka. sida la tilmaamay, Tehran ayaa u muuqata in ay Urdun u aragto goob muhiim ah oo ka mid ah howlgalladeeda qarsoodiga ah ee argoosiga loogu samayn karo, iyadoo aan kaliya diiradda la saarin baa la yidhi saldhigyada ciidamada Mareykanka, balse sidoo kale la sheegay in la bartilmaameedsanayo xarumo istiraatiiji ah oo goobahaasi ku yaala. qoraagu waxa uu tusaale u soo qaatay isku dayo la sheegay in lagu weeraray dekedda Caqaba iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Caqaba, kuwaas oo lagu tilmaamay kaabayaal muhiim u ah dhaqaalaha iyo amniga wadankaasi. sidoo kale waxa la sheegay weerarada ka dhacay maalintii Jimcaha inay noqdeen isbedel weyn oo dhinaca ammaanka ah, isagoo xusay in Iiraan ay ku guuleysatay in ay garaacdo hanti military oo taala mid ka mid ah
saldhigyada ku yaala Urdun kuwaasi oo sida la sheegay sababay baa la yiri dhimashada 3 askari oo Mareykan ah. qoraagu waxa uu ku dooday in dhacdadan ay calaamad u tahay marxalad cusub oo xiisada gobolka ah isla markaana ay Urdun wajahayso caqabad amni iyo mid siyaasadeed oo sii kordhaysa marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan. dhinaca kale xogayaha amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa ku dhawaaqay dowladda Washington inay markan doonayso xal kama dambaysa oo laga gaaro dagaalada iyo waliba in la aado dhabaha diblomaasiyadda, laakiin waxa jira buu yiri shuruudo kale oo muhiim ah. xogayaha amuraha dibadda Mareykanka ahna saaxiibada gaarka ah ee madaxweyne Trump Marco Rubio ayaa sheegay in Mareykanka uu wali doorbidaya xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjaro xiisada kala dhaxaysa Iran, isagoo carabka ku adkeeyay in ujeedadu ay tahay in aysan yeelan hubka nuclear-ka. Rubio ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Iran ay la soo xiriireen Mareykanka si ay uga wada hadlaan xiisada sii kordhaysa, hase yeeshee waxa uu sheegay in Washington ay ka shakisan tahay miro dhalinta wada hadallada maadaama sida uu sheegay Iran aysan hore u fulin ballanqaadyadii ay qaaday. waxa uu xusay in Iran ay wajahday xaalad adag oo dhaqaale taas oo ay u sii xumeyn baa la yiri sicir bararka saameynta iyo colaadda sii xoogaysanaysa. xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio waxa uu sidoo kale sheegay in weerarada lagu hayo marinka Hormuz, isagoo cadeeyay in ciidamada Mareykanku ay wali difaaci doonaan maraakiibta u kala gooshaysa marinbiyoodkaasi. Rubio waxa uu sidoo kale qeexay in Mareykanka uu sheegay sidii loo xadidi lahaa awoodda Iran ay ku beegsanayso maraakiibta ganacsiga si looga hortago jiritaanka qatar kasta oo ka timaanaysa Tehran. Rubio waxa uu ku eedeeyay Iran inay beegsanayso isu socodka ganacsiga caalamiga ah, waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in dowladda Tehran ay maalgelinayso dhinacyo kala duwan oo qatar ku ah amniga gobolka guud ahaantiiba. khiyaarta ay nala socotay wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Bariga Dhexe xilligan intaas ayaan ku hakanayaa si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan